aad baad u mahadsan tahay saaxiibkay Abuukar Cawaale. Degmada Xagal oo ka tirsan gobolka Saaxil waxay qiyaas ahaan kaga toosan tahay dhanka waqooyi. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dhul qiyaas ahaan dhan 110 kilomitir, halka magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxilna ay dhanka bari kaga toosan tahay dhul qiyaas ahaan gaadhaya 90 kilomitir. waxaana deegaankani oo ah gubanka dheer ee xeebta gobolka Saaxil uu yahay mid ay haystaan xilligani baahiyo kala duwan oo dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada bulshada ah. Dhanka wadooyinka magaaladani waxa ay tahay mid dhibaatooyin xooggan ay ka haystaan gaadiidkii iman lahaa, waxaana gaadiidka safarka ah ee ka yimaada dhanka magaalada Berbera ay la kulmaan bacaad xooggan iyo weliba togag tiro badan oo xaniba isu socodka gaadiidka, halka jidka labaad ee soo gala degmadani Xagalna uu ka yimaado magaalada Burco isna yahay mid dhib badan oo buuro iyo dooxooyinba leh. dhibaatooyinka wada la'aanta ee deegaankani maaha oo kaliya mid saamaysay gaadiidka, balse waxa ay dhanka kale saameyn ku yeelatay horumarka kale ee dhanka waxbarashada ee deegaankani Xagal. xilligani waxa magaalada Xagal ay tahay mid leh dugsi waxbarasho oo ka kooban 3 fasal ayna wax ku bartaan arday tiro ahaan dhaafaysa 120 arday, balse sida ay sheegeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi waxay xuseen in ardaydaasi wax ka barata dugsigaasi ay haysato duruufo ay ka mid yihiin helitaanka agabka waxbarasho iyo weliba kuraastii ay ku fadhiisan lahaayeen ardaydaasi. halkaan joognaa imika waa iskuulkii Xagaleed degmada Xagal waxa dhisan labada fasal iyo fasalkan oo qolada qurba joogta ah ee deegaanka ay dhiseen kaasoo isna aan qalabaysnayn. marka 3 fasal baa noo dhisan, arday ilaa 130 meelahaas ayaa joogta oo ah dugsiga hoose iyo dhexe. marka kulli waxa jira waxooga baahiya waxa jira labada gelin waa la dhigtaa, waa ilaa grade 7 ardaydu ay maraysaa. marka 3 fasal baa dhisan, labada gelin waanu dhignaa. waxa kaloo marka daruuriya in la dhiso qayb kororsiima xataa suuliyaal ma laha. baahiyu way iska badan yihiin. waxaan u baahanahay dugsiga sare in loo dhiso. hay'adda waxaan u mahadnaqaynaa haad ee qurba joogta ah, waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka degmada xagga waxbarashada, caafimaadka, dhinac kastaba. dhanka kale dadweynaha deegaankaasi Xagal ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay dhismaha xarun waxbarasho oo isugu jira dugsi sare iyo weliba maxad diiniya, kaasoo haatan uu ballan qaaday ururka haad ee fadhigiisu yahay dalka UK inuu ka soo hirgelinayo deegaanka Xagal, taasi oo wax weyn ka tari doonta baahida waxbarasho ee deegaankani ka jirtay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga waxa la yiraahdaa Daahir Dubbad Yuusuf Baleeha. waxaan ka mid ahay odayaasha degmada. kabacdi waxaanu ka hadlaynaa danaha ummadda iyo degmada. waxa baahiyaadkaygu aad iyo aad buu fara badan yahay baahiyaadka degmada. waxa ugu muhiimka ah waxa weeye xagga waxbarashada, xagga caafimaadka ayaa ugu muhiimsan. xagga wadooyinka oo wada xumo laga haysta, xagga bandarka iyo laga haysta ayaa ugu fara badan. aad iyo aad baan ugu salaamaynaa hay'adaha ugu soo dhaweynaysa haad, aad baan ugu soo dhaweynaynaa iyo qurba joogtaba. Cumar Axmed Cawil hay'adan haad aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. marxigaha waxaan u mahadcelinaynaa maayirka degmada Yuusuf Axmed Maxamed oo run ahaan wax badan ka qabtay degmada, sida iskuulkan oo dumay, saligii bilayska, guriyihii martida, waxyaalo badan ka qabtay. ayaan aad ugu mahadcelinaynaa. waxa kale oo u mahadcelinaynaa qurba joogta iyo hay'adda haad maadaama ay yiraahdeen waxaanu dhisaynaa dugsi sare iyo isugu jira boodhan. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa haddaan nahay deegaanka Xagleed. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ciddii kasta ee danaynaysa Xagal inay ku soo dhawaato. duruufaha waa aragteen waxa weeyaan ku xeeran Xagal. waxa loogu nool yahay Xagal iyo bari ama deegaanka Berbera ee bari waxa loogu nool yahay sidii loogu noolan jiray 100 sano ka hor sidii loogu noolan jiray ayaa imika loogu nool yahay. awr baa halka aragteen lagaga safraa, 7 wuu sii dhaxaa, 7 wuu soo dhaxaa. marka baahiyaha aad iyo aad waxa weeyaan u baahanahay waxa kamid ah wadadii oo waxa weeye jeel baan nagu xiranay, jeelka horta in la ka jabiyo oo qofka in la ka jabiyo
wixii kale markaas hay'adaasuna waan soo dhaweynaa aad iyo aad baan u dhaweynaa assalaamu calaykum marka hore aad iyo aad baan u mahad celinayaa dhalinyaradaas oo run ahaantii muujisay dadaal ragnimo iyo geesinimo waxaan leeyahay hambaliyo marka labaad haddii aan u soo noqdo baahiyaha deegaanka jira horta deegaanku waa deegaan oodan oo labada dhinacba ka waxaan soo soconay iminka burco markaanu ka nimi ilaa 15 saacadood ilaa 16 saacadood baan soo soconay laba gaarigu soo soconay gaariga marna waanu ka degaynay marna waanu lugeynay intaan lugeynayna ka badnay intaan gaariga la soconay taas waa duruufaha xagga wadada ka jiro oo tambariga wadada berbera lafteeda iminka baabuur ka yimaada ma jiro oo degmadu inta badan waxay ku xirantahay hadda waqtigan xaadirka burco gaariga yimaada berbera baabuurta maamulka mooyaane baabuur kale iminka degmada uga timaada ma jirto aad ugu rajo weyn aan sugaynaa hay'adda haad oo iyaduna dhisaysa iskuulada xagal iyo huguf oo dhaqan dubo habeyn lagu samaynayo oo iyagana aanu ka dhur sugaynay imikana aanu hayno warkooda insha Allah daawadayaal imkiya haatanna waxaan idinku wareejin doonaa saaxiibka Abuukar Cawaale oo ku sugan stuudiyaha telefishinka Somali Channel ee London si uu halkaas inooga sii wado barnaamijkeeni Daldis